wafdi ballaaran uu hogaaminayo xogayaha warshadaha xisbiga wadani Axmed Cali Nuur ay ku helinayaan boqorada haweenka Soomaaliland Aamina Caaqil Yare Ugaas Cabdiraxmaan Diiri iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga wadani ayaa ololihii ugu dambeysay kala qayb galay taageerayaasha xisbiga wadani ee ku sugan deegaamada Gumbur Libaax Gaadlay Kaatama iyo sidoo kale deegaanka Warac Ibraan waxaanay mas'uuliyiintu dhammaantoodba deegaanadaasi kala kulmeen soo dhaweyn dhadaraandara soo dhaweynta kadib waxa iyaguna halkaasi ka hadallo isugu jira ka soo jeediyay dadka deegaanadaasi ku dhaqan oo sheegay inay codkoodii xuduudoodaba la garab taagan yihiin xisbiga isbedel doonka ee wadani waxaana hadaladoodii ka mid ahaa halkaan noo joogo oo nabad ilaalina mooyaane dawlad mid Soomaaliland ka soconaysa toona nooma imanin xukuumad baan ina haysatay dhamaanteen xukuumaddiina haysatay wax alaale wax qabado ay noo qabatay aanu ka haynaa ma jirto kulmiye maalin buu xiyaada wadani maxaynu siinaa laba cod waxaynu tusaynaa inaan wadani laba cod ka helin meeshan ee uu kala badanayo ama uu ka guulaysanayo marka hore waa farteena waxaynu siinaynaa oo aynu ku wada soconnaa oo ku midaysannahay xisbiga wadani waxaana iyagu dhankooda hadalka iska daba qaatay mas'uuliyiinta xisbiga wadani waxaana sidoo kale ballanqaad u sameeyeen dadka ku dhaqan deegaanadaasi haddii ku guulaysto xisbiga isbedel doonka ee wadani dhalinyaro waayeel reer Warac Ibraan wafdigaan nahay wadani ka soconaynay oo aanu idiin nimi adaatihiin wadanidii deegaanka Warac Ibraan oo ammaantood dhan sugayseen oo qorraxdii iyo dhibaatadii intaas u hurteen hawlihii aad lahaydeen mabda'iina iyo sharaftida ka mudan tihiin xisbiga wadani asagu foodu soo yaala ambalaasku waxa kale jira rugta caafimaadka xoolaha waxa laga dhigayaa Warac Ibraan waana laga qaaday markii hore haddii ay dhalato dawladda wadani waxaan ahay reer UK inaan UK ka soo guuro oo aan u imaado qof weyna waana inta cimrigayga ka hadhay hablaha Warac Ibraan inaan wax u qabto وإلهي مهدي أو إمانة تاجروا موجين آديات تاجرات mid dheeraada ah oo tiin maalmii hore ay muujinayeen mid ka fara badan ah Warac Ibraan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa soo dhaweynta weyn ay ku qaabileen xisbiga wafdiga wadani marka waxaan leeyahay balamahan qaadnay insha Allah xisbiga horta ballan qaaday 30% inuu haweenka wuxuu qaban doono hadal badan baynu nidhi oo dhaxalgala ballan qaadyada la ballan qaadayna sida loo ballan qaaday weeye waxa weeyaan anagu haddaan nahay mas'uuliyiinta sare xisbiga wadani waxa weeyaan magaaladan la yiraahdo Gumbur Libaax waa magaalo aad u faac weyn oo taariikhiya oo ilaa lixdamaadkii ahayd magaalo weyn markaas in badan baanu xukuumaddii jirtay maxamed Siraayi xukumayay iyo ragga kale ugu tagnay magaalada inay wax magaalooyin kale ay waxay u qabanayaan u qabtaan Bashaakir Cabdi Axmed telefishinka caalamiga SB magaalada Burco